Xeerlaalinta guud ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ayaa soo saaray bayaan lagu xakameynayo hadallada nacaybka iyo fidinta xogaha beenta. Golaha sharciyada iyo la talinta cadaaladda ee xeerlaalinta guud ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ayaa bahwadaagta wasaaradaha u qabtay kulan looga doodayay bayaan qabiyo ah oo ay soo diyaarisay xeerlaalinta guud ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya isla markaana lagu xakameynayo hadallada nacaybka iyo fidinta xogta beenta ah. Ku-xigeenka xeerlaalinta guud ee dalka Dr. Gideon Timotheus ayaa ka qaybgalayaasha si faahfaahsan uga bandhigay qodobada uu bayaankani xakameynta hadallada nacaybka iyo fidinta xogta beenta ah uu xambaarsan yahay. Bayaankan ayaa la sheegay in sababta loogu baahday ay tahay in la helo xeerar iyo shuruuciyo lagu xakameeyo xogaha been abuurka ah ee sharafta aadamaha dhaawacaya iyo in hadallada nacaybka abuuraya ee sida ulakaaca ah loo baahiyo ay saameyn weyn ku leeyihiin iskudhacyada bulshada dalka, khatarna ku yihiin nabadgelyada dalka, sinaanta bulshada dimuqraadiyadda iyo midnimada shacabka dalka, isla mar ahaantan ay muhiim tahay in la helo sharci xakameeya hadallada nacaybka ah si markaasi looga hortago fidinta xogta been abuurka ah. Haddaba bayaankani ayaa hadallada nacaybka ah ku qeexay hadalka nacaybku waa in shakhsi kale, koox, qowmiyad ay bulshadu ka tirsan yihiin midkood, diin, jinsi, dhaxal-la'aan, muwaadininimada, midab, qaxootinimada, sawirka ama muuqaalka shakhsi, hanaanka luqadaha, iyadoo bartilmaameed laga dhiganayo aadamaha lagu magac dilo, lagu caayo, lagu cabsiyo, isla markaana dadka la magac dilo ama dhibaato kale loogu geysanayo la shaaciyo hadallo kicin ah. Bayaankan ayaa sidoo kalena ku qeexaya fidinta been abuurka sidan: xogta beenta ah waa in cinwaankeeda dhabta ah been yahay ama dulucda oo kicin iyo isku dhac ama waxyeelo ka keenaysa, iyadoo hadallo saameyn sare leh si ulakac ah loo shaaciyo. Dhanka kale, bayaankani ayaa qodobo ugu yeedhay falalka la mamnuucay ku daray bayaanka xakameynta hadallada nacaybka iyo xogta beenta ah, isaga oo sharaxaad dheer ahna ka bixiyay qodobadaasi. Sidoo kale, ciddii iyada oo garanaysa ama ay ahayd in ay barato ama ay xaqiijiso in macnaha xogtu been yahay ama ay dulucda ugu weyn ee xogtu uu gudbinayo fariin kicin iyo isku dhac ah ama waxyeeleyn keenaysa, uu jidkii uu doono ku baahiyo islamarkaana uu bulshada si cad uu lakac ah u gaadhsiiyo, iyada oo bayaanku caddeeyey in ciddii falalkan iyo wixii la mida geysata iyada oo loo eegayo hadba heerka ay saameynta xogtiisu la eg tahay ay xabsi 1 sano ilaa 5 sano ah ku mutaysanayso, islamarkaana laga qaadayo ganaax lacageed oo gaadhaya ilaa 10,000 oo bir. Fulinta bayaankan ayaa awood loo siiyey inay dabagal iyo taageero ka geystaan waaxda adeeg bixinta warbaahinta baraha bulshada ee wakaaladda sharciyada warbaahinta Itoobiya ee afka qalaad loogu yeedho Ethiopian Broadcast Authority. Islamarkaana ku-xigeenka xeerlaalinta guud ee dalka ayaa wakaaladda ugu baaqay inay wakaaladda waajibaadkooda si wanaagsan uga soo baxaan oo ay hay-adaha adeegyada warbaahinta baraha bulshada bixiya ay dabagal joogto ah ku sameeyaan, islamar ahaantana ay taageero fudiyaan. Ugu dambeyntiina, ku-xigeenka xeerlaalinta guud ee dalka ayaa faahfaahin dheeriya ka bixiyey su'aalihii iyo talabixinadii ay ka qaybgalayaasha iyo bahwadaagtu u soo jeediyeen.